taxanaha ee ku saabsanaa veterinary medicine barashada xanaanada xoolaha ama barashada dugaaga barashada xayawaanaadka maanta waxaan eegaynaa bal inaynu eegno casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay scientific classification of goats riyaha maxaa loo qaybiyaa scientific ahaan marka la eegayo scientific ahaan termiska riyaha waxaa loo kala qaybiyaa ama riyaha abtirsiimadooda iyo qaybaha loo kala qaybiyo iyo magacyadooda terminology wordska loo isticmaalo riyaha adduunka looga isticmaalo ayaynu eegaynaa scientific classification of goats riyaha waxaa loo kala qaybiyaa saa halkan ku aragtaan qaybahan baa loo kala qaybiyaa riyaha waxay weeyaan kingdomka ka tirsan yihiin waa animalia oo animalia ka tirsan yihiin kingdomka ka tirsan yihiin ama boqortooyada ka tirsan yihiin phylumka ay kasii tirsan yihiin waa kordhaata oo wax weeyaan vertebratka qaybtii lahayd ee wax weeyaan marka laableynaya xayawaanaadka kordhaati ka tirsan yihiin phylumka glasska ay ka tirsan yihiin riyuhu waxa la dhahaa mamalia oo wax weeyaan mammaliska soo raacsan yihiin naasleyda ay ka tirsan yihiin waxa weeyaan glasska ka tirsan waxa la dhahaa mamalia oo ah naasleydii orderka ay ka tirsan yihiin waa artiodactyl waa inagii xayawaanada kala qaybinay qaar artiodactyl qaarna pirsodactyl marka artiodactyl bay ku jiraan riyuhu hadaba ay leeyihiin iyagu raaf ay leeyihiin artiodactylka ku jiraan waxa kale waxa weeyaan halkan aynu ku kala qaybinayna family ay ka tirsan waa Bophidae family-gaas ka tirsan yihiin oo dhammaan clover hoof animalku ay ku jiraan sida lo'da riyaha idaha ugaadha qaarkood ugaadha antilope kale ay groupkaasi ku jiraan Bophidae family-ga ka tirsan waa caprine oo ah riyihii species-ka ka tirsan waa caprine iga gagas waxay ka tirsan yihiin species-ka ka tirsan waa caprine iga gagas trinomial name bay leeyihiin layaha cab weeyaan waxa weeyaan binomialka kale leeyihiin waa cabra hirkas waxa weeyaan qaabkaas ayaa scientific classification riyaha loo kala qaybiyo waa scientific classification-ka loo qaybiyo riyaha meel kasta ay joogaan adduunka waa abtirsiimadooda waa taas xayawaanaadka oo dhan waa la kala qaybiyaa dhammaan species waxay leeyihiin groups waxa la dhahaa taxonomy baa jirta animal taxonomy oo ah qaybaha xoolaha isku raacraacsan loo kala qaybiyo waxaynu eegaynaa terminology-ga loo isticmaalo riyaha terminology-ga loo isticmaalo terminology user goats waxaynu eegaynaa halkan waxaan ka eegaynaa ama aynu tusaale ka bixinaynaa xoogaa ku saabsan riyaha iyo magacyada loo isticmaalo halkan waxa weeyaan nani ama waxa weeyaan waa mature female goat-ka waxaa la dhahaa ama waxaa la dhahaa nani labadaas waxa weeye marka rida ayaa la dhahaa rida aan ahayn waxarta ee rida yar aan ahayn rida weyn ee qaangaarka ayaa waxa la dhahaa ama waxa la dhahaa nani book ama ser waxa weeyaan asaguna orgiga weyn weeyaan orgi maaha yar oo waxaro kala maaha laakiin si orgi mature oo qaangaaro 3 sano 4 sano 5 sano 6 sano waa book ama ser baa laga hayaa kidin waxa weeyaan marka xayawaanaadka wax kasta waxay leeyihiin terminology u gaar ah oo loo isticmaalo kidin waxa weeyaan giving birth markay ridu dhalayso ayaa la dhahaa kidin ma oranaysid ridii way dhalaysaa waxa weeyaan kidin waa terminology caadi oo loo isticmaalo waa terminology caadi oo loo isticmaalo veterinary medicine waa kidin chiffon waxa weeyaan meat from goats hilibka riyaha waxa la dhahaa chiffon waa hilibka riyaha yearling waa 1 year old goat rida waxa weeyaan markay jirto 1 sano ayaa waxa loo yaqaanaa yearling baa loo yaqaanaa bullet waa goat natural horseless bullet waxa weeyaan rida marka hore riyaha qaarna waxa weeyaan geesay leeyihiin qaarna markooda horeba markay la abuuro ilaahay abuurtooda geesay ma laha marka inagu waxu naqaanaa way soonyooyin riyaha soonyo waxa la dhahaa bullet goats baa la dhahaa way soonyooyin riyahaas waxa jirta wither waa castrated goat male ayaa waxa la yiraahdaa wither marka waxa weeyaan castrated goat male macnihiisu waxa weeyaan orgiga dhufaanan maaha orgiga qoorka ah orgiga marka la dhufaamo ayaa waxa la yiraahdaa ama la tumo orgiga tuman ayaa waxa la yiraahdaa laga saaray xiniyihii orgiga tuman ee xiniyihii laga saaray waxa la yiraahdaa wither castrated male goat despite removed horns in young age despite waxa weeyaan removed horns in young age
markii neefku uu yar yahay ayaa waxa laga sameeyaa waxa laga saarayaa geesaha ayaa laga remove gareynayaa si hodhow toole aan waxa weeyaan aan u sameeynin inuu riyaha kala hirdiyo oo dilo oo geesaha waxa weeyaan aan hodhow toole waxay keenaysaa asagoo weyn hadii la yiraahdo orgaca ama rida hadii la yiraahdo weyn ka rida geesaha waa laga ridi kara geeska waxa weeyaan laga remove gareyn kara laakiin markay yartahay ayay ka hawl yartahay oo barka yare ruqunta yare soo baxaayo soo baxaayo in marka laga saaro fiican oo laga remove gareeyo kid waxa weeyaan yongi goat kidku waxa weeyaan kid waa yongi goat waxa weeyaan waxara yar weeyaan waxara yar baa lahaa kids ama kid dealing with baby female goat oo waxarta ayaa waxa la yiraahdaa waxarta ayaa waxa la yiraahdaa dealing markaas intaas waxaan ku eegaynaa ku sharaxaynaa riyaha meelaha ka yimaadeen riyaha Soomaalida laba qaybood baa loo qaybiyaa labada qaybood oo loo qaybiyo riyaha Soomaalida qayb waxa la yiraahdaa Arab tape baa la yiraahdaa qaybna waxa la yiraahdaa shorty irid East African goats baa la yiraahdaa labada tape ayaa laga helaa Soomaalida ay riyahooda loo qaybiyaa badan waa weight halka kuwa kale ay ka leeyihiin midabo isku jirjira kuwa Arabian tape ee inta badan dhogor badan way leeyihiin wariya dhogortu ku yara fara badan tahay kalena waxa la yiraahdaa long hair irid Arabian goats baa la yiraahdaa labada goat baa inta badan laga helaa Soomaalida ay riyaha Soomaalida loo qaybiyaa channel-keenan Soomaali veterinary medicine kasta waxaanu bulshada Soomaaliyeed aanu wada diyaarnahay inaan soo gudbino dhaqashada xoolaha iyo muhiimadda ay leedahay dhaqashada xoolaha adduunku soo xoolaha u dhaqdo iyo wax weeyaan Soomaalidu qaabka u dhaqato wax weeyaan waxaan ka codsanaynaa please channel-kan subscribe gareeya like gareeya wixii comment yaa noo dhaafa wassalaamu calaykum